بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعيق وحالي رضا عبد الباسط على راقي وحان كسعودة مساجد كتوفيق إسلاميك سنتر ان قيبتا ان فاميلada عرورته ان ujeedada aan ka leenahay videogan maanta waxaan bilawnay in aan ka aruurino mise tirikoob ahaan aan helno inta qoys ee caruur Soomaaliyeed ka maqan tahay taasoo nagu kaliftay in maxaan ku yiraahdaa dadkii ay kala daadsan yihiin dadkeena isku xirneen ninba meel arrinta ku qabsatay marka anaga iyo waalidiin arrinta qabsatay ayaa inta isu nimaanay oo go'aansanay in aan sameyno xiriir isku xir network marka waxaan rajaynaynaa oo ka codsanaynaa in aad nala soo xiriirtid oo emailka hoos ku qoran inaad nagala soo xiriirtid oo aad ku soo qorto magacaada iyo caruurta ka maqan intay leeyihiin ama telephone numberka asna meesha ku hoos qoran hadduu ilaa yiraahdo haddii aad taqaano dad oo arrinkaas saameeya caruur ka maqan tahay inaad adigana dadka aad la xiriirto oo anaga nagu soo xirto dadka hadduu ilaa yiraahdo marka waxaan rabnaa in insha Allah aan dadka isku xirno oo hadhow toole wixii xuquuq waalidiintaas ama caruurtaas maqan ay leedahay inaan insha Allah inaan xuquuqdooda u raadino sababta aan rabno in dadka nagula soo xiriiraan saan u sheegay waxa waaye inaan sameyno isku xir platform marka inaan kulmino waalidiinta arrinkaas uu saameeyay ka bacdi kiisaskooda dib looga laabto haddii marka ay noqoto xuquuq ka maqan haddii ay jirto inaan xuquuqdooda u raadino haddii rajo laga leeyahay in ilmahaas waalidiinta dhasha loo soo celiyana habkii marka loogu soo celinayo falkooda inaan galno laakiin tan ugu horeyso ugu muhiimsan waxa waaye bal inaan dadka isku xirno hadhow toolana baahidii inta aan anaga dabooli karno inaan ku dadaalo inaan daboolno